maamulka madaxweyne Farmaajo ayaa la ogyahay inay dib u habeyn ballaaran ku sameeyeen nidaamka maaliyadda Soomaaliya taasoo soo celisay kalsoonidii uu caalamka ku qabay hay'adaha dhaqaalaha dalka waxa ayna saamaxday in Soomaaliya laga cafiyo deen lagu lahaa muddo dheer waxa jirta in arrinkaas maamulkiisu geliyay dadaal iyo waqti badan hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa bishii Maaj ee sanadkan waxa ay sheegtay in dalku uu gaaray marxaladdii ugu dambeysay ee hanaanka deen cafinta ee loo sameeyo dalalka faqriga ah arrinkan ayaa horseeday in Soomaaliya ay soo ceshato xiriirkii ay la lahayd hay'adaha maaliyadeed ee caalamka taasoo horseedi karta horumarinta dhaqaalaha dalka iyo in malaayiin qof laga saaro saboolnimada ay ku nool yihiin maamulka madaxweyne Farmaajo ayaa hirgeliyay diiwaanka gal u sameynta ciidamada oo loo maray hab casri ah si loo ogaado tirada saxda ah iyo tayada ciidanka Soomaaliyeed howlaha dib u habeynta ciidamada ayaa noqotay mid dhaxalgal ah waxa ayna ciidamada qaranka maanta soo gaareen meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay xilli uu khudbad ka jeedinayay xarunta oo dhegle in uu ku hanwen yahay ilaalinta anshaxa ciidanka ayna dawladdiisa diyaar u la tahay agabka iyo dhaqaalaha si ay u noqdaan ciidan niyad ahaan dhisan hogaanka madaxweyne Farmaajo ayaa dhisay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uuna cadeeyay in maamulkiisu ay dagaal kula jiraan musuqmaasuqa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa xabsiga u taxaabay agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha dawladda oo loo xiray musuqmaasuqa